xisbiga mucaaradka ee ucid ayaa maalintii u dambeysay ee ololihiisa fagaaraha beerta xorriyadda ee magaalada Ceergaabo ku soo bandhigay taageerayaasha musharaxiinta golayaasha wakiilada iyo deegaanka degmada Ceergaabo oo isaga kala yimi xarumaha iyo xafiisyada musharaxiintaasi ku leeyihiin gudaha magaalada Ceergaabo waxaana ka hor intii musharaxiinta iyo taageerayaashooda aanay ka soo qayb galin munaasabadaasi ka qabsoomisay fagaaraha beerta xorriyadda ay socod luga ku soo mareen shaarciyada waaweyn ee magaalada Ceergaabo waxaana ay taageerayaashu siteen boodhar iyo astaamo ay ku sawiran yihiin musharaxiinta ay taageersan yihiin ugu horreyna waxa fagaarahaasi taageerayaasha kala hadlay mas'uuliyiinta xisbiga ucid ee gobolka Sanaag iyo afhayeenka xisbigaasi aad baan idinku mahadnaqayaa mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan idin leeyahay sidaa cududiina u muujiseen maanta codayntu joogto 31 Mayna xildhibaanadiina sharafta badan soo dooran maysaan xildhibaanadana ilaahay waxaan uga baryayaa in ilaahay ku guuleeyo xilka in ilaahay u fududeeyo taageerayaasha waxaan u sheegayaa in maanta ay tahay maalin weyn maanta ay tahay nin waliba ninkuu jeclaa oo uu dib jiray oo uu aamanaa oo ku ciilqabay inuu maanta fartiisa ku soo saarayo codkiisa maanta yaana idinka baylihin aad baa u mahadsantihiin waxaan idinla dardaarmayaa inaa musharaxiintiinna afarta siisaan 31 May oo aad codkiinna ugu deeqdaan waan aragnaa oo ma guul daraysanayaan laakiin guusha u sii adkeeya guushana idinka u horseedi doona guud ahaan musharaxiinta waxaan u rajaynayaa guul xisbigu maanta waa xisbigii ugu tayada badnaa wuxuu soo soocay oo ugu soo dooray dad mutacallimiina oo dhalinyaro ah oo ka labada goleba si looga faa'iidaysto oo ay u qabtaan golaha sharci dejinta iyo golaha deegaanka madax dhaqameed iyo waxgarad ka soo qayb galay ayaa geestooda ugu baaqay shacabku inay u codeeyaan musharaxiintaasi ka sharxan xisbiga ucid xisbigan la yiraahdo ucid baa wata maanta guusha ha guulaysto xildhibaanada waxaan ka rajaynayaa ucud ka sharaxan insha Allah way soo wada baxayaan wajiyadoodana waa wada eegaysaan waa ogtii Faysal guuldaradana wuu yaqaan guushana wuu yaqaan laakiin sarag baan guushana aqoon guuldaradana fatax lagu dadaalo haddii ay minahay xisbiga aan soo saaro musharaxiinta geestooda musharaxiinta golayaasha wakiilada ee deegaanka gobolka Sanaag ee goobjooga ka ahaa munaasabadaasi ayaa taageerayaashooda ka codsaday inay codka siiyaan maalinta doorashada ee 31 May oo 5 maalmood oo kaliya inaga xigaan wasaantaydu waa gariga soo u codayn mayno maanta haddii aniga doorashada la siiyo waxaan balan qaadayaa shaqooyin badan oo gobolka ka muuqda baahiyo badan oo ka muuqda inaan balan qaato inaan wax ka qabano waxa la rabaa astaanteenna waa diigaaye inaynu diiga u codayno sanaagow waxaan doonayaa inaan isbedel keenno inaad furaha dooratiin furihii waa furihii mustaqbalka iyo cadaaladda iyo daryeelka insha Allah waa Cabdullaahi Maxamed Jaamac waxa weeye waa aray oo maanta waxaan sitaa astaanta shabeelka aniga astaantaydu Yaasin maxaa soo arkeenahay waa astaanta gaariga weeye gaarigu waa dheereeya war gaarigu yunadi ka tagi waxaan soo jeedinayaa shacabka reer Sanaag reerku hangoolaan miyuu guuraa jawaabtu waa maya gobolku hangoolaan guuri maayo hangoolku waa horumariye reer Sanaag in aad idinkoo isku duuban codka siisaan xildhibaanada ka sharaxan xisbiga ucid waxaan dhammaan taageerayaasha degmada Ceergaabo ka codsanayaa sida nambarkaygu u horeeyo 101 u yahay in codkayguna uu hormood ka noqdo nasiisaan waxaanu idinku shaqayn doonaa si daacada si hufan si hagarla change baynu u baahanahay isbedel baynu u baahanahay Soomaha waan ii ballan qaadayaa Axmed Siciid ahaan ilmo kasta oo reer Ceergaabo ah inuu waxbarasho helo noqono murashaxiin ku soo baxa golaha deegaanka si degmadeennu ay u noqoto degmo ka bilan ka barwaaqaysan degmooyin kale ee Soomaaliland codkiina oo aad ku hubsataan 106 ama 106 31 May dhalinyarada waxa dhalay haweenka waxaan ahay anigu hooyo waxaan idinka codsanayaa lambarka 109 inaad ii calaamadisaan 31 May waxaan ahay musharaxa kaliya
ee astaantiisu ama nambaradiisu ay yihiin hal nambar weliba nambarkaasina yahay insha allah waxaan idinka codsanayaa maalinta 31 May inaynu dooranno dadka wax u qabanaya lasma garab ordee bulshay garaninka gudan kara xilka gudi kara abaal adoga fil xaqa ucid guushasi Cabdiraxmaan Ilsar Saab TV Cergaabo